calanka Soomaaliya qabaan maadaama aan funaanad Soomaaliyeed aan haysan waxa soo xirtay calankeena sharafta badnaa baan soo xirtay waa buluugaas inaan rag iska dhacshaadar maca xaafadu wax buluuga waa ka waayay maanta waa calanka Soomaaliya weey السلام عليكم دمانتي بسو بلا سو دوادا وراشكنا ما تراشك waxa ka bixinayna heesta ilka casqays iyo maxamed kaldari ay soo qaadeen heesta waa hees joogida degan yahay wax ku bilaabanaysaa helicopter studio waa kaldari maxuu bilaabay ilka cas we love my love Somali waa jecla ayaa si socno damirko dinta wali tagna deeqba mooye dulkale masugo halkaan noqobo ilkaas wuxuu ku leeyahay diiday anigu waan diiday maxaa diiday anoo si saato dadkan yaa iskale dalka yaa iskale calanka yaa u maqan waa su'aal gudan asi wada socono halkaa qabo maxamed kadheeri wani cod halaasiye leh wani muuq habboon leh wuxuu yidhi dambiga yaa ka galnay wariyaa dhibta ka galnay Soomaali haddaan nahay dhalinyaray dambiga gacanteena ayaan ku galnay ta koowaad isma cafino tan labaad ilaahay uma mahadnaqno ta saddexaad astaghfirullah ma dhahno asi socono halka ay qabo dhulka cadse oo maalmahan jawi kacsan ku soo galay fanka wuxuu dalkan in la gato dooni maayo yukaallaya waa mucaaradka Kenya u daba dhaqaya hadda fahanay waa ilaahay saa dalkan in la gato dooni maayo si socono waqti ma haysano iyagabo badaha lagu daato hooyo dooni maayo teeda kale waxay qabaan calanka Soomaaliya qabaan maadaama aan funaanad Soomaaliyeed aan haysan waxa soo xirtay calankeena sharafta badnaa baan soo xirtay waa buluugaas inaan rag iska dhacshaadar maca xaafadu wax buluuga waa ka waayay maanta waa calanka Soomaaliya weey bacdaas soo xirtay wadannimo wata taas ay wadannimo waqti waa nagu yaryahay reaction-kana bartamaha ayaa kaga jirnaa asi wadano calankayga yaa u diiday inuu duulo oo dadkayga yaa dabray buu yiri eray cajiib ah yaa dabray marka heestaasi waa heestii ugu fiicneed baan dhihi karnaa anagu siyaad ahaan raashkayga waa heestii ugu fiicneed 2021 waana heestan soo jidatay asi socon
halkaa qabo waagii hore aan wax baran jirnay anagoo yaryar waxaan samayn jirnay odayaal baana soo qaadi jiray waa yaryareen odayaasha waxay dhihi jireen wallaahi niyahow dalku burbur buu galay waagii soomaaliya ardayga lagama tegi jiray gaari ka tago la xiri jiray ubixii kacaankaa la dhihi jiray saan ku fixi jiray haddeena arday iska wareegaysa arkaysaa iyo rag haysta muxuu ahaa baabuur qurux badan saa wato wallaahi ardayga qaadayna male weligaa baadiya ma u safarta bal gaariga istaaji cid ku qaadaysa male soomaaliya naxariis ka guudhay waa ka guudhay ma aqaan meel loo socda anigu ma aqaan meel loo socday raashinkaan sii wadano شعبكو اسكو دوبان هوي هوي دوريا وداري كارلان هوي هوي دوريا مضح تعبان هوي هوي دوريا دروس قطران هوي هوي دوريا دلق بلقران هوي هوي دوريا دارا هولا بسان هوي هوي دوريا دلحيش دوتغان هوي هوي دوريا دلكان يا اسكال دلكان يا أمك عوانك يا اسكال dalkan yaa umaqon dalkan yaa iskale buu ku leeyahay duruus loo dareero baan hooyadii yaa weeye waa dhulku la hadlayaa waa soomaali la hadlayaa yaa maxaa ku tilmaamaa dee ciyaalka xaafadda waa isla joognaa waxaa la rabaa inaad wadaniyiin noqotaan inaad dhala ka qaadaan dariiq waa inaad hooyooyinka iyo dadka masaakiinta moobilada ka furanaysaan aad joojisaan dalka annagaa leh dalxiisyaal caalami u baahan yahay dalka intaad moobilada furanaysaan socdina aad isaga diri aadaysaan see weye lama baahna waa iga xanaajiseen raashkaa noo soo yiri intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa reactionkeena maxamed kaldeeri waa bahansan yihiin iyo weliba projectionka ninka ay ku bilaabatay heestu fahad cabdina waa salaamayaa dhirkaasina aad baa ugu mahad celinayaa heesta cajiibka ay soo qaadeen ayaa tiktokna waxaa ugu baaqaynaa in ay videogaasi ay gadaan in shacabka laga gado weeye aad baan u salaamayaa cid kasta oo like-ta iyo subscribe-ka ii siisay janaalkayga bye bye